Taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay burcad qowleysata ah iyo hubkooda kuwaas oo maanta lagu soo qabtay howlgal ciidanka Boolisku ay ka sameeyeen degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. Burcadan ayaa dib u geysan jirtay bulshada Soomaaliyeed waxa ayna saaka dhexdooda ku dagaalameen isgoyska X control oo ay qalalaase amni ka geysteen. waxaana ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo ka jawaabaya falkooda ay galabta howlgal qorsheysan ku qaadeen goob ay isugu tageen burcadan halkaas oo lagu soo qabtay 9 kamid ah burcadii dhibka geysatay oo nool iyo 3 dhaawac sida uu sheegay taliye ku-xigeenka afayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan. saakay aroortii abaaro 1 saac iyo 50 daqiiqo waxaa shaqaaqo israasaasayna ka dhacday isgoyska X control dhinaca Daynile israasayntaas oo ay dhex martay maleeshiyaad qowleysata ah oo ku dhaqnaa area deegaankaas kuwaas oo u soo shaqo tagay inay dhacaan hantida iyo maalka ummadda Soomaaliyeed ee areadaas ku ganacsata markii ay dhici wixii bilaaween ayay dhaxdoodii ka tafatay oo ayaga gudahooda isku bilaaway israasayntii halkaas oo ay ku dhinteen dad rayid ah oo tiradooda gaaraysa 4 qofood iyo tiro intaas leeg oo dhaawac ah ilaa 3 qofood oo dhaawac ah ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo ka duulaya arkaanta amniga oo asagu uu yahay udub dhaxaadkeedii ayaa waxa goobtii tagay soona qiimeeyay ayagoo ku fikiray xaaladda adag ee lagu jira iyo saxmadda area inay saamaxeen xilligaas howlgal laga sameeyo ciidanka Booliska Soomaaliyeed waxay qorsheeyeen operation lagu soo qabqabanayo maleeshiyaadkaas ciidanka qaybta guud ee Booliska gobolka Banaadir oo iskaashanaya xooraan iyo dabagal dheer kadib waxay abaara 12 galabnimo ee galabta weerareen goobtii ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadkii dhaca iyo dilka iyo dhaawaca u geystay bulshada Soomaaliyeed waxayna gacanta ku soo dhigeen qaar kamid ah oo kaamirooyinkiina ay qabanayaan iyo hubkii ay siteen oo ay ku dhibaateynayeen bulshada Soomaaliyeed waxaana la horgeyn doonaa sida ku cad nidaamka u yaala xeerarka amniga ama xeerarka habka qabta Soomaaliyeed cadaaladda waxayna dheefi doonaan wixii ay dhaxleen maadaama ay dhibaateeyeen bulshada Soomaaliyeed ee ku sugnayd isgoyska X control iyo areadiisa ayadoo ay ku dhimatay maamo waayeel ah xabada ayagu isdhaafsanayeen mana aqbali doona dana Booliska Soomaaliyeed mana yeeli doono shakhsi dambe oo dhaawac u geysan kara bulshada aan u dhaarnay inaan sugno ammaankooda. Taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa burcadan ka dalbaday inay isku soo dhiibaan cadaaladda iyagoo ka dhaga adeegay waxa ayna taasi keentay in si awood lagu soo muqooniyo Cabdullaahi Axmed Qorane warbaahinta qaranka Muqdisho.